sida loo qaybiyo tirada xujayda oo ay u gaadho dawlad goboleedyada u gaadho iyo heer federaal arrintaas caddeyn baan uga baahannahay. ahlu sunno wax la dhahay waxaan ahlu sunno la dhahin Soomaaliya ma ka jiraan. sida aad wasaaradda u tagtay waxaa la ii sheegayaa inaysan inta badan wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka aysan active ahayn dad shaqeeya aysan ahayn simbalina shaqadii ay ku soo ururtay adiga gacantaada. xajku sidiisaba isagu hadda wax badan baa afar iyo bar lagu qaybsadaa ka mid ma aha waa rukn min arkaan al-islaam runtii waa ka weyn yahay wax afar iyo bar lagu qaybsado. sanad walba ma qaybsan oo sanad walba tartan baa la galaa mase sanadkii hore kuwii tartanka ku guuleystay un baa sanadka dambana ka qayb gala. shaqooyinka waan isla qabanaa wasiirada meesha jooga iyo dhammaan teamka wasaaradda oo dhanba shaqooyinka waa wada qabanaa oo waa laga qaadaa oo dad baa ka qaada lacagta waxaa loo yaqaanaa hadiga waxa loo yaqaano way saad ogtihiin saddex wajiba sida shariicadu ay tahay xajka loo xajiyaa ifraad inuu qofka ku xajiyo oo xaj kaliya uu xirto inuu tamattuco oo marka hore umra intuu xirto xaj ka daba geeyo iyo inuu qiraan sameeyo labadiiba uu xiriiriyo baa lagu xajiyaa. ifraadka qofka lagama rabo hadiyi ku waajibi maayo labada kale hadiyi baa laga rabaa. Soomaalidu intaba way ku xajinaysaa labada kale qofka ku xajiya waxay u badan yihiin tamattu ay u badan yihiin hadiyi baa ku waajibo hadiyigaasu dad baa qaado shirkado iyo jamciyada waxbaa qaado hadda ka hor dawladdu ma ay qaadin si hoogaa yar fawda ah baa lagu qaadaa qofba waxbaa laga qaadaa hadhowna marmar da'dii loogu talagalay hadiga wax ka yar baa dhacday in la qalo meel aan munaasab ahayn in lagu qalo. Sacuudiga hadda sanadkan waxbay soo rogeen amar bay soo rogeen oo ay leeyihiin dawlad walba xujaydeeda hadiyigooda inay nidaamiso iyada laga rabaa oo sanadkan hadda waa waajib in loo nidaamiyo maxaa yeelay waxay leeyihiin waxay keentay da'dii wax ka yar in qofkii laga qalo ama lacagtii la qaato aan waxba loo samaynin ama meel aan munaasab ahayn laga qalo marka waxay leeyihiin muraaqaba lagu samaynayaa waxaa laga rabaa sanadkan dawlad walba hadigeeda inay nidaamiso waana waxyaabaha xajka lagu qiimeynayo ka mid noqon doonta waa kaba su'aasha waxay daarantay su'aasheedu hadiga ma daarna qofkii isagu neefs ka qalaya ama dhaxay iyo hadiyo nooc doonaha ula baxo sharciyan ama fiqiyan su'aashu waxay daaran tahay xaajigii halkan lacagtiisa la baxay shirkad lacagteeda ku wareejiyay tigirkiisii iyo hoteelkiisii wixiisiiba laga qaaday xaraminka intuu joogo ama madiina ka dago ama markuu maka joogo lacag dambe oo wasaaradda xajku ka qaadaysa miyaa jirta waxaanu ka hadlaynaa waa wixii isagu uu cibaad ahaan isaga bixinayo wuxuu ku qanacsan yahay taas ma jirto laakiin tana sanadkan waxaa la isleeyahay Sacuudiga inay waajibiyaan ha laga soo qaado ay bixisada ha fuliso inay yiraahdeen hadda sanadkan ay saas leeyihiin waa wax ku wali wasiirka dib aan uga wada hadli doono laakiin wax kale oo laga qaado xajiga ma jiro. sida loo qaybiyo tirada xujayda oo ay u gaadho dawlad goboleedyada u gaadho iyo heer federaal arrintaas caddeyn baan uga baahannahay. waa su'aal muhiim ah xajku sidiisaba isagu hadda wax badan baa afar iyo bar lagu qaybsadaa ka mid ma aha waa rukn min arkaan al-islaam runtii waa ka weyn yahay wax afar iyo bar lagu qaybsado. dadku waxbay sheegaan waxaa la yidhi nin reer berbera ahayaa ingiriisku markay meesha joogeen waa waxay dhaheen berbere naga iibso intuu bacaadku fadhiyay ka kacayoo bacaadkii iska hurgufay buu yidhi berbere wax go' lagu qaado ka weyn buu yidhi runtii taariikh bay noqotay nin Soomaaliya oo runtii watani ah oo ilaa hadda la sheego noqday ninkii yacni xajku waa rukn min arkaan al-islaam ka weyn wax afar iyo bar lagu qaybsado. haddii taas la yiraahdo waxaa nagu soo socota salaadana noo qaybiya zakada la qaybiyo taas ma ogtahay kuma socon xajka wuxuu ku socdaa saad ogtihiin wasiir federaal ah baxo isaga soo saxiixo dawladda Soomaaliya annaga hebellaan badan la hor naqaana iyadoo waxaas ma taqaan waxay taqaanaa al-jamhuuriyadda Soomaaliya bay taqaanaa marka saas marka lagu soo qaybiyo hal meel ayaa looga tartamaa oo caasimadii ah wasaaratul oo wasaaradda federaalka qabata tartanka maba la fiiriyo hebel iyo hebel lama fiiriye xujay Soomaaliyeed iyo shirkado Soomaaliyeed oo yimid baa loo fiiriyaa si cadli ah bay u tartamaan
ay u galaan wixii ilaahay siiyo ayaa soo baxo laakiin ilaahay ma hadiisa inta badan maamul goboleedyada wax uun baa ka jooga ha kala bateen ha kala yaraadeen Soomaalinima loo tartamaya marka rugnigaas weeye waxa lagu tartamayo mid kalena xajku cid walba kuma waajibo man istaa'a ilayhi sabila qofkii bees haysta kaliya baxo marka saas uun baan anigu ku wadnaa sanad walba ma qaybisaan oo sanad walba tartan baa la galaa mase sanadkii hore kuwii tartanka ku guuleystay baa sanadka dambana ka qayb gala سند في كل سنة أو السنوات السابقة وأنا ترتماي جواب تاثير sida aad wasaaradda u tagtay waxa la ii sheegayaa inaysan inta badan wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka aysan active ahayn dad shaqeeya aysan ahayn simbalina shaqadii ay ku soo aruurtay adiga gacantaada wasaaradanu wasaaradaha dawladda bay ka mid tahay oo waxa wasaaradaha ka jira baa iyadana ka jira wasiirka xigeenku wuxuu wasiir u diru qabtaa wax qoran waayaan u maleynaa anigu ma qorin wax jiray waaye saas ay tahayna shaqooyinka waan isla qabanaa wasiirada meesha jooga iyo dhammaan teamka wasaaradda oo dhanba shaqooyinka waa wada qabanaa wax hadda la kala qarsadaa oo meesha yaalo badan uma jiraan intaad hadda arkayseen baa badankoodana wax cusub oo horey u jirin oo la soo korriyay baa la qabtay intaan waxaan dhihi karaa haddaanay jirin iska warqab iyo wada shaqayn haddaanay jirin intaa ma qabsoomi lahayn horta hal istilaax oo khaldan inaan saxaan rabaa ahlu sunno wax la dhahay waxaan ahlu sunno la dhahin Soomaaliya ma ka jiraan Soomaalidu dhamaantooda waa ahlu sunna wal jamaa madhabku fiqigaan waa Shaafici intaas horta waa in la ogaado haddii qof shakhsiya intuu meel ooto yiraahdo mooro ooto ama shaati isaga la examaysto ma ogtahay uu yiraahdo anaa meeshii ka maqan hooga ma fiicna culimadu Soomaaliya iyagoo isku duuban bay shirku joogeen waad ogtihiin oo nabi ilaahay soo diray oo nabi Muhammad oo ogtihiin dad khilaafaad ark qof iyo laba iyo waa la arkaa inay ra'yi u muuqdo laakiin culimada haddaad ula jeedo culamaa turuq as-suufiya oo culimadeena turuqda oo runtii wax badan dalkaana ka soo qabtay ma joogeen haabaan leey aad bay u joogeen iyagaaba shirkiba gudoomiye ka ahaa sheekh la yiraahdo sheekh sugow suufiyare ayaa guddigii shirka culimada abaabulay oo dhan isagaaba gudoomiye ka ahaa ma yahay culimadaas mise ma ahan shariif sheekh maxuushi abdul baari oo culimada ugu waaweyn oo la yaqaan baa meesha fadhiyay shirka hadii meeshan la soo saar waad u jeedaane ma shakhsi marka isaga wax la noqotay hadaad ula jeedo shariifow shakhsi la weyn maayo adiguba hadar beel baad xildhibaan u tahay hadii la yiraahdo shariifka ma wada rabtaan qaar baa ku diiday dan iyaga u gaaray ku diidaya waxay ku leeyihiin kaas waa ku khaldanay kuna laaban mayn haday rabaan qof shakhsi ah waxa qabi kara laakiin waxaan ku sheegay culimadu inay midaysan tahay Soomaalida oo dhan inay ahlu sunna wal jamaa ay yihiin anagoo dhan intiina meesha fariidan ahlu sunna nahay waadna mahadsantii waa run oo nabigu jooga ma ogtahay ansaar iyo muhaajiriin loo kala cabtay nabigu waa u yeeray wuu la hadlay uu heshiisiyay sideeda dad muslim ah oo meel wada jooga ilkay arriba isugu dhow waa la isdibsanaya marmar run weeye kama aanan harin horta culimada Soomaaliyeed wax oo hoolkii jaziiro u qaadaya ma ahan inta muqdisho joogto ma qaadi karo waxa la wacayaa waa rumuus yar baa la wacayaa anagu culimada waxaan rabnaa saan ballan qaadnay inaan isku wadno u dhagan ulaano isku soo jiidno ila majliska hadda la sheegayo uu sameysmo markuu majliskooda u sameysano waxaan isleenahay iyaga is wadi doono waxaana diyaar u nahay runtii guddigii oo waxa tiin arrimaha diinta haddaad wax aragtaan hebel iyo hebel maxaa daarayna dhaho noo keena ogaada maxaa ka jira meesha laakiin qof aan necbnahay ama qof aan gooni ahaan u soo jiidanayna runtii ma jiro culimada Soomaaliyeed waa noo siman yihiin luqun waxa laba garab ay u dhaxaysa dhaxdaan u joogna shirkadaha loo xusho waqtiga xajka yaa doonaa wasiir wax ka weydiino habka ay ku yimaadaan shirkadahan xajka geeya dadka su'aasha markaan ku weydiinayna waxaan doonaynaa insha Allah ma ka codsanaynaa inaad toos u abaarto jawaabta oo arar iyo naaxnaaxin kale iyo san hadalku nooga faafin ama waqti noogu filaado inaad su'aasha toos u guda gasho oo jawaabteeda aad abaarto insha Allah ta'ala
guddiga oo wasiirku magacaabo wuxuu fariisanayaa asna xarun wasaaradda banaankeeda ah si shaqada ugu gacan banaanaadaan oo khalalka iyo mushkilaadka iyo dadka imaatinkiisa shaqada si aynu u beerdaroobin marka guddigaas systemka hadda uu sheegay Axmed Daawud saaxiibkay ayaa la sameeyay kaasa dokumentiga lagu soo apply gareynaya la soo marinaya lagu soo codsanaya systemkaas guddiga wasiirku magacaabay ayaa maamulayo oo tafniidayo oo fiirinayo hubinayo dokumentiyada soo gala marka dokumentiyadaas waxaa laga hubinayaa habraaci ma maray qofkan wuxuu soo gudbiyay mise waxba ka dhiman intaas loo sameeyay control way kan markuu dhamaado muddadii la qabtay markay dhamaato guddi hoosaadkii dokumentiyadii ayaa laga dalbanayaa maalin walba waxay qabtaan habeenkii inay guddiga sare ay u soo hoofiyaan oo ay keenaan labadaas dokumenti midna uu yahay electronic soo maray midna gacanta laga keenay ayaa la isag dhigayaa guddiga sare marka waxaa gacan yaro u ala shaqeynay guddigii gacanta dokumentiga ku qabtay oo soo guddiga waxaa lagu soo xulaa shakhsiyaadka oo magaca ku leh dalka shakhsiyaadka daniga intiisa badan inay fiican yihiin loo arko bani aadamka mushkiladiisu waxay tahay wax ka muuqdo iyo wax markii uu shaqo galo laga baranayo inta badan waa nisbay noqonaysaa fiicnaantiis iyo xumaantiis